Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Nuurshe Academy. Casharkan waa cashirkii 17aad. Waxaan ku qaadanaynaa telling time in English, in waqtiga lagu sheego Ingiriiska. Okay, cashirkan wuxuu ku bilaabanayaa su'aal oo ah what time is it? Waa meeqo saac? What time is it? Waa imisa saac? saacadu waa imisadii. Okay, marka sidii aan ugu jawaabi lahayn su-aashaas ayaan halkan ku qaadanaynaa. hadba xilligii ay ku tahay ayaad sheegaysaa saacadda. hadda halkan waxaa ku qoran labadii oo buuro ah, labadii oo gow ah. Okay, marka waxaad leedahay it is 2 o'clock. waa 2 o'clock, labadii oo buuro ah, labadii oo gow ah. yacni waxna lama jiro labada, waxna kama dhinno. waa labadii oo gow ah. It is 2 o'clock, waa labadii oo gow ah. Okay, halkan marka waxaa raacday 5 daqiiqo. waa 2 iyo 5 daqiiqo soo maaha, 2 iyo 5 daqiiqo. marka waxaad soo hormarinaysaa 5taa soo hormarinaysaa. waxaad leedahay it is 5. it is 5. Okay, basti 2. basti ereygan haddii aan idiin sii faahfaahiyo, basti horta wax tegay waa. basti waxaa la wax tegay. marka it is 5 basti 2 waxaa laga wadaa labadii ayay 5 daqiiqo dhaaftay. labadii ayay 5 dhaaftay. 5 basti 5 ayay dhaaftay waa. it is waa 5 past 2, labadii ayay 5 daqiiqo dhaaftay. sidaasaa laga wadaa. Okay, 5ta ayaa lasoo hormarinayaa, kadibna saacadda aa loo dambeysiinaa. waxaa leeyahay it is 5 past 2, waa labadii oo 5 dhaaftay. labadii ayay 5 dhaaftay waa 2 iyo 5 daqiiqo macnaha. Okay, hadda halkan imaaw, labadii waxay dhaaftay 10 daqiiqo. waa 2 iyo 10 daqiiqo maano. waxaa leedahay marka it is 10. 10kaa soo hormarinaysaa. it is 10 past 2, labadii ayay 10 dhaaftay. Okay, or haddii kale waxaad dhigi kartaa it is 10 past 2, 10 daqiiqo ayay dhaaftay labadii. Okay, it is 10 past 2, labadii ayay 10 daqiiqo dhaaftay. sidaasaa laga wadaa. daqiiqadaha soo hormarinaysaa marka hore. haye kan imaaw haddana labadii hadda waxay dhaaftay 15 daqiiqo. waa 2 iyo 15 daqiiqo maho. 15 daqiiqaa soo hormarinaysaa. Okay, it is okay, halkaa marka maxaa ka rabti 15 inay noqotaa ka rabti maho. it is 15 past 2 aa ka rabti. marka 15 iyo quarter waa isku mid. quarter waxaa laga wadaa rubi. quarter waa rubi, waa 15 daqiiqo. marka waxaa leedahay it is quarter past 2, rubi ayay dhaaftay labadii. rubuc. quarter waa rubuc. it is quarter past 2, labadii ayay rubuc dhaaftay. rubuc waa rubi, waa 15 daqiiqo. Okay, haye waxaa kale waa dhihi kartaa it is 15 past 2 waa dhihi kartaa. laakiin marka af Soomaaliga lagu hadlaayo kale waxaa dhahdaa waa labadii iyo rubi. Okay, marka haddii labadii iyo 15 daqiiqana mararka qaar waa dhahdaa. marka sidaasoo kaleento it is quarter past 2, labadii ayay waxay dhaaftay rubuc ama rubi ama 15 daqiiqo. it is 15 past 2 waa dhihi kartaa. Okay, it is quarter past 2, labadii ayay rubuc dhaaftay ama rubi. halkan imaam marka labadii waxay dhaaftay 20 daqiiqo. daqiiqadaha soo hormare. it is 20 past 2, 20 daqiiqo ayay dhaaftay. waa mogtahay labadii ayay 20 daqiiqo dhaaftay. waa 2 iyo 20 daqiiqo ayay halkan imaam haddana. halkan waxay dhaaftay 30 daqiiqo. 30ka half aa la yiraahdaa marka. half waa nuski. waa nuski. Okay, it is half past 2, labadii ayay nus dhaaftay. waa labadii iyo barkii.
it is half past 2 waa labadii iyo barkii. Okay, halkan marka qayb kale inta bilaabanayso waxaan kalarka ugu bedelay waxba ka jiro. hada halkan 2:40 miya dhahdaa marka af Soomaali aad taagantiid waa may Soomaa waxaad tiraahdaa 3:20 dhiman 3:20 dhiman ma tiraahdid 2:40 daqiiqo. mararka qaar waa la dhihi karaa 2:40 waa la dhihi karaa oo waa la dhahaa, laakiin waxay yiraahdaan dadka badankood 3:20 dhiman. Okay, marka sidaas si la mid ah waxaa leedahay it is 20 to 3 3:20 dhiman tahay. tuudan hadaa aragtid way ka dhiman tahay waa bastina waxay ahayd way dhaaftay. Okay, basti hadda halka aad ku arkaysid basti way dhaaftay waa tuuna way ka dhiman tahay. marka it is 20 to 3 3:20 dhiman tahay. halka ima hadana fiiri 3 maxaa dhiman 15 daqiiqo ka dhiman Soomaa waa 2:45 daqiiqo. 3 maxaa ka dhiman 15 daqiiqo ka dhiman. marka waxaa leedahay 15 daqiiqo maxaa loo yaqaan quarter oo ah rubuc ama rubi. waxaa leedahay marka it is quarter to 3. Okay, 3 oo rubuc dhiman 3 oo rubi dhiman. halkan ima hadana waa 2:50 daqiiqo. maxaa leedahay marka 2:50 daqiiqo maya halkan waa qalday 55 aan ka dhigo. Okay, 2:55 daqiiqo 2:55 daqiiqo 3 meeqa ka dhiman 5 daqiiqo ka dhiman. waxaa leedahay marka it is 5 to 3 it is 5 to 3 3 oo 5 dhiman waaye. it is 5 to 3 3 oo 5 dhiman waaye. 3 ayay 5 daqiiqo ka harsantaa. halkan ima marka waa 3 oo buuro ah waa 3 oo gow ah. waxaa leedahay marka it is 3 o'clock it is 3 o'clock waa 3 oo buuro ah oo gow ah oo aan waxba la jirin waxbana aan ka dhinnayn. marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. hadaa hal mar soo dul maro telling time in English ciwaankeenu waa telling time in English in waqtiga lagu sheego af Ingiriisi. what time is it waa meeqa saac waa imisa saac. Okay, labadii oo buuro ah it is 2 o'clock 2:05 daqiiqo waxaa leedahay 5 daqiiqa soo hormarinaysaa it is 5:02 labadii ayay 5 daqiiqo dhaaftay. halkaana 10 daqiiqo dhaaftay Soomaa it is 10:02 labadii ayay 10 daqiiqo dhaaftay waa 2:10 daqiiqo. halkan 15 daqiiqo dhaaftay Soomaa waxaa leedahay it is 2:15 labadii ayay rubuc dhaaftay. halkaana 20 daqiiqo dhaaftay Soomaa daqiiqadaha soo hormaray marka hore it is 20:02 20 daqiiqo ayay dhaaftay labadii ayay 20 daqiiqo dhaaftay. Okay, waa 2:20 daqiiqo it is 20:02. marka waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. halkan halfka waa nuska laga wadaa 30 daqiiqo. marka ay ka dhiman ee tahayna tuudaas la adeegsadaa. hada halkan waa 2:40 3 waxa ka dhiman 20 daqiiqo. marka 20 daqiiqo ee ka dhinnaay waxa leedahay it is 20 to 3 20 daqiiqo ay ka dhiman tahay 3 waa 3 oo 20 daqiiqo dhiman. Okay, halkaana waxa dhiman rubuc waa it is quarter to 3 3 oo rubuc dhiman ilaa 15 daqiiqo ka harsan sidaad arkaysaan. halkaana 5 daqiiqo ka harsan Soomaahan 3 waxaa leedahay marka it is 5 to 3 5 daqiiqo ay dhiman waa 3 oo 5 daqiiqo dhiman. halkaana waa 3 oo gow ah it is 3 o'clock. waxaan rajaynayaa inaad fahanteen. la socda cashirka 18aad guulaan idin rajaynaa dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.